Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo wafdigu uu hogaaminayay ee ku sugnaa magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa iyaga oo xariisan isla markaana khilaaf uu kala dhaxeeyo Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku laabteen gudaha magaalada Baydhabo. Haddaba waxaan halkan idinku soo gudbinayaa xog ku saabsan qodobada ugu waaweyn ee la isku khilaafay iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed oo Baydhabo kaga dhawaaqi doona xisbi ama urur cusub. haddaba soo dhawaada saaxiibayaal, muuqaalkeena sii gudbiya la gareey shargareeya oo la sii wadaaga asxaabtiina. waxaa waayahanba jiray ama labadii maalin la soo dhaafay aad u xoogeystay khilaaf ka dhashay xisbiga cadaaladda iyo wadajirka, kaas oo ay ku jiraan madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka, isla markaana loogu talagalay in uu madaxa ugu sareeya ka noqdo Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. xilkan ay kala qaybsadeen xubnaha ugu badan ee UPD ka soo baxay iyo Xasan Sheekh Maxamuud, taas oo keentay in caro uu qaado hogaamiye Laftagareen ayaa dalbaday maalmo ka hor in xogayaha xisbiga ama ku-xigeenka guud ee xisbiga ay qaataan haddii ay yihiin Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. waxaana sida aan idinla wadaagay loo yeeray waqtigaasi Odawa ninka la yiraahdo oo xildhibaan ah. ha yeeshee Cabdiraxmaan Odawa ayaa diiday in xilkaasi uu dhiibo si loogu maslaxeeyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. khilaafka oo la rajeynayay in lasoo gabagabeeyo ayaa aad u xoogeystay. waxaa Laftagareen lagu qanciyey in ay qaataan xubin ka mid ah guddiga xubnaha la dhisaayo. ha yeeshee wuxuu sheegay in Koonfur Galbeed iyo madaxdooda aysan u cuntamin arrintan, isla markaana shirka ay ka baxayaan. waxaa maanta dhawowday in Xasan iyo sidoo kale Laftagareen oo isqaniinsan iyo Laftagareen oo xanaaqsan caro ay ka muuqato iyo wafdigiisii oo aad u careysan, isla markaana wajiyadooda laga dheehanayay in ay ku laabtaan gudaha Baydhabo. ma aysan ogeyn shacabka magaalada Baydhabo iyo madaxda maamulkaasi in ay ku laabanayaan oo soo dhaweyn ayaa loo sameyn lahaa. waxaase ka war heleen mar qura Laftagareen oo jooga garoonka diyaaradaha ee Baydhabo iyo wafdigii uu la socday. waxaase halkaasi durbadiiba laga ogaaday in khilaafka jiray dartiis uu uga soo baxay shirka. haddaba xogo la helayo ayaa tilmaamaya in Laftagareen iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ee Koonfur Galbeed iyo xubno siyaasiyiin ah oo ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho, kuwaas oo intooda ugu badan kasoo jeeda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, ay sameyn doonaan sida xogaha ay sheegayaan urur cusub oo magaciisa hadda aan la shaacin si loogu jibiyo ururkan kale ee Xasan Sheekh Maxamuud uu wato. Laftagareen waxaa la sheegay inuu fahamsan yahay oo uu yahay nin khibrad leh oo siyaasadda fahamsan. Xasan Sheekhna uu ku fahmay qorshihiisa ah in xisbigan uu dhammaan xilka ugu sareeya siiya dadka ku dhow Koonfur Galbeedna uu siiyo xubin aad u liidata, taas oo kalifi karta in aysan go'aanada ugu waaweyn xisbiga saameyn ku yeelan, balse ay noqdaan kuwa waxa loo sheego oo kaliya qaadan kara. taas oo dad badan ay sheegeen in Laftagareen loo hoosgelin rabay, balse uu ku fahmay kaartada Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale xubnaha UPD ka soo baxay. haddaba haddii aan si kooban u khulaaseeno, tan waxay imaanaysaa kadib markii lagu kala tegay xisbiga UPD, isla markaana mas-uul ka mid ah xubnahaasi oo ku sugan magaalada Kismaayo uu sheegay in magaca xisbiga la xaday, shaabada la isticmaalay, isla markaana laga been abuurtay. wuxuuna ka digay sida aan idiin soo gudbiyey in arrintaasi ay sii socoto. ha yeeshee Xasan Sheekh iyo xubnihiisa oo shire ayaa u bedelay magaca xisbiga wadajirka iyo cadaaladda. su-aasha aan kugu soo gabagabeynaya waxay tahay, iyada oo 3 sano iyo bar magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay ka dhaceen tabashooyin badan, guryihii danta guud iyo kuwa gaarka ah la xaraashay, meydadii la soo faagay, askartii qaarkood xaabo laga dhigay oo lagu shoo furmaha dagaalka, saraakiil badan la la'yahay, isla markaana sidoo kale ku darsay ay jiraan cadaalad darro aad u baahsan. xisbigan magaca uu wata fiiri, aragtidaada qaybtoosa ku dhiibo. xisbigan ma ka shaqeyn karaa cadaalad iyo wadajir ummadda Soomaaliyeed?